ciidamada difaaca Puntland ayaa saacadihii la soo dhaafay howlgal qorsheysan waxa ay ka fuliyeen buuraleyda Calmiskaad ee gobolka Bari. Ciidamada ayaa howlgaladani ku gaaray goobo ay hore u joogeen Daacish. Howlgaladani ayaa saraakiisha horkacisay waxa ay sheegeen in looga gogol leeyahay in kooxda Daacish looga saaro goobaha kooban ee kaga sugan yihiin buuraha Calmiskaad ee gobolka Bari. taliska ciidamada difaaca Puntland ayaa qoraal uu soo saaray wax ay baaq ugu direen dadka reer guuraaga ah ee degan aaga buuraleyda Calmiskaad ee gobolka Bari. qoraalka ayaa dadka loogu baaqay in muddo 24 saac gudahooda ay uga fogaadaan goobaha ku dhuumaaleysanayaan kooxda iyo xitaa goobaha ay tahay in ay firxadkooda soo gaaro si looga baaqsado dhibaatada shacabka reer Puntland si gaar ah kuwa Calmiskaad ee ka soo gaartay duqeymaha la beegsaday. wajiga saddexaad ee dagaalka ka dhan ah kooxda Daacish ayay Puntland ku dhawaaqday waxaana heegan la geliyay ciidamo badan oo loo qorsheeyay in ay ka qayb noqdaan howlgaladaasi. waxaana saraakiisha difaaca Puntland ay xaqiijiyeen in duqeymas isdaba joog ah lagu qaadi doono goobaha ay gobolka ay kaga sugan yihiin kooxda Daacish. Puntland ayaa guul la taaban karo ka gaartay kooxda Daacish tan iyo bilowgii howlgalka uu ku dhawaaqay madaxweyne Siciid Cabdilaahi Deni, waxaana gacanta ciidamada difaaca Puntland soo galay deegaano horle ee maamulayeen kooxda Daacish ayna ka soo abaabulayeen weerarada iyo dagaalo taasi oo lagu qaadi jiray saldhigyada ciidamada Puntland.